soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal ku soo dhawaada Ibros Tactical Analysis seasonkan cusub ee 2026-2027 shanta horyaal ee kubadda cagta ugu waaweyn waxaa game walba ka sameyn doonaa tactics iyo analysis. muuqaalkan waxaa rabaa inaan kugula wadaago round 1ka Saudi Pro League waa horyaalka ugu horeeyay ee hadda furma Saudi Pro League. round 1ka 9 ciyaarood waaye. round 1ka Saudi Pro League hadeertaan koox-kooxa u dul istaagi doonaa. Game ugu horeeya Al Abha vs Al Hazima wada ciyaarayay. Al Abha waxay ku soo laabatay Saudi Pro League kadib markii ay ku guuleysatay First Division Saudiga. halka Al Hazima iyaduna ay kamid tahay kooxaha soo dalacay oo labada kooxoodba waa laba kooxood oo soo dalacay. kulankan waa kulan ay labada kooxoodba ay doonayaan inay ku helaan bilow wanaagsan maadaama divisionka ay ka soo dalaceen oo horyaalka ay imaadeen. waa laba kooxood oo divisionka ka soo dalacay waa Al Abha iyo vs Al Hazim. soo marka predictionka gamekan wuxuu noqon karaa under 3.5 goals wax ka yar 4 goal 100%. waa gamekeena koowaad. gamekeena labaad guud galeynaa. gamekan waxaa wada ciyaarayo Aldiria vs Al Ahli. Aldiria waa koox cusub oo soo gashay horyaalka halka Al Ahli ay kamid tahay Big Four Saudi Arabia. Al Ahli waxay xilli ciyaareedkan la gaareen tababar cusub Marino Busi. farqiga tayada squadka ayaa u muuqda mid aad u weyn. predictionka aan siinayo Aldiria vs Al Ahli wuxuu noqonayaa Al Ahli won confidence ama probability of winning waa 72%. waa Aldiria vs Al Ahli 72% probability Al Ahli ay win gareyn karto. gameka saddexaad wuxuu noqon doonaa Al Shabab vs Al Qadsiya. Al Qadsiya waxay kamid ahayd kooxihii ugu yaabka badnaa xil ciyaareedkii hore iyadoo ay hogaamiyeen ciyaartooy tayo sare leh. predictionkan marka wuxuu noqon karaa Al Qadsiya inay heli karto double chance. confidence-ga ama probability-gana 60% waaye. gameka afraad Neom vs Al Fayha wada ciyaari doona. Neom waa mashruuc cusub oo Saudi Arabia waxayna doonayaan inay si fiican ku bilaabaan xil ciyaareedkan maadaama kooda ugu horeeyay ee Saudi Premier League. predictionkan Neom waxaan sii karaa double chance. gamekeena shanaad Al Ittifaq vs Al Riyadh. Al Riyadh waxay ka soo badbaadeen xil ciyaareed adag halka Al Ittifaq ay weli tahay koox adag marka ay gurigeeda joogto. prediction ahaan waxaan siinayaa Al Ittifaq win or draw taa oo macnaheedu tahay inay badin karto ama inay heli karto double chance. Al Hilal vs Al Faisali waa gameka lixaad. tani waa mid kamid ah kulamada ugu kalsoonida badan round 1ka. Al Hilal xil ciyaareedkii hore waxay ku dhameysteen iyagoo aan laga badin horyaalka oo dhan haddana waa laga qaaday Saudi Pro League. soo marka predictionkayga waxaa siinayaa Al Hilal inay badin karto. gamekeena toddobaad waa Al Tawun vs Al Khalij. Al Tawun waxay sanadihii dambe muujiyeen xil ciyaareed wanaagsan joogteen iyo sidoo kale qaab ciyaareed aad u fiican. predictionkan waxaan siinayaa Al Tawun win ama dabcan waa ay badin kartaa Al Tawun. Al Ittihad vs Al Qalud waa gamekeena sideedaad. Al Ittihad waxay weli kamid tahay kooxaha ugu awood badan Saudi Arabia. prediction ahaan Al Ittihad wina siinaya maadaama afarta kooxood ee ugu waaweyn horyaalka ay ku jirto. gamekeena ugu dambeeya inta badan Soomaalida ay xiiseeyaan waa Al Nassr vs Al Fateh. Al Nassr iyo Al Fateh kulamo fara badan ay wada dheeleen. Al Nassr taageero fara badan ay leedahay inkastoo gamekan laga yaabo in players muhiim ay ka maqnaadaan. Al Nassr waa kooxda difaacanaysa horyaalka waxayna doonayaan in si xoogan ay ku bilaabaan xil ciyaareed cusub. Cristiano Ronaldo iyo kooxda ayaa wajahaya cadaadis ah inay sii difaacdaan horyaalka. predictionkan Al Fateh iyo Al Nassr waxaa siinaya prediction ahaan Al Nassr inay badin karto 80%. sidaas waxaa ku dhameeyay round 1ka Saudi Pro League tactical analysis-kiisa 9 ciyaarood. top picks-ka ama round 1ka afarta kooxood ee top picks-ka ah round 1ka Saudi Pro League waxay noqon doonaan Al Hilal win, Al Nassr win, Al Ittihad win, Al Ahli win. horyaalka kale ee xiga ee furmi doona wuxuu noqon doonaa La Liga. La Liga Premier League
Serie A Bundesliga iyo Saudi Pro League waa shanta horyaal ee asdii karo waa ku ugu xisaab badan game walbana waxa ka soo sameyn doona tactical analysis waxa inoo balana round 1ka La Liga waana kuma santahay daawashada muuqaalkan marka hadii taad daawashada ku originalka waxa si xushmad kaaga codsanaa inaad jalka subscribe saarto